kusoo dhawow Abno Official. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. kusoo dhawaada Abno Official. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. muuqaalkan waxaan kaga sheekeynaynaa kambaniyada ugu caansan mid ka mid ah adduunyada laga yaqaan waa maqaayad aad wada taqaanaan KFC. haddaba KFC waxyaabaha ay caanka ku tahay waxaa ka mid ah burgerka aadka u qurxoon, dhexda lagu shubay digaag shiilan, sisinta ka muuqata, caalamku idil wada yaqaana muuqaalkeeda, dhadhankeeda. dabcan maqaayadaas ayaan maanta ka sheekeynaynaa. mar walba aad ogsoonaata meel walba qof walba dunidan gaara ama shirkadiisa meel sare gaarsiiya, waxaad ogaataa mar walba qofkaas inuu meel hoose uu kasoo bilaabay. adiga shakhsiyan haddaad tahay qof maanta heer tiigsanayo ama company abuuraayo, magac abuuraayo, mar walba ku talagal inaad biri 20 sano 10 sano 5 sano kadib kambanigaaga magacaaga kor u kacayo. waa haddii aad adigu laasimtid wadada guusha iyo adkeysiga iyo dhabar adayga aad muujisid. haddaba muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa su-aasha ah, waa maxay sababta KFC ay u guuleysatay? KFC waa mid ka mid ah maqaayadaha digaaga ugu fiican adduunka. waxay adeegaysay in ka badan 50 sano. waxaa halkan kusoo qaadanaynaa qaar ka mid ah sheekooyinka qiimaha leh ee laga soo qaatay sheekada guusha KFC si ay kaaga caawiyaan inaad ku guuleysato howlaha ganacsi. KFC waxaa la aasaasay 1930. waxaa aasaasay ninka loo yaqaan Harland Sanders oo loo yaqaan Colin Sanders. fikradda maqaayadda waxay u timid Sanders sababtoo ah wuxuu rabay inuu ka faa'iideysto habka digaaga ee markii hore loo isticmaali jiray in lagu kariyo digaaga guriga oo kaliya. Sanders wuxuu bilaabay ganacsigiisa 1952 wuxuuna si dhaqso ah u helay guul sababtoo ah cuntada digaaga ee shiilan ee gaarka ah. hal mar KFC waxay lahayd in ka badan 600 dukaan ganacsi oo ku yaal Mareykanka oo kaliya. isticmaalka gaarka ah ee xawaashka sida basbaaska iyo milixda ayaa ka dhigaya digaaga la shiilay ee KFC inay ka dhex muuqdaan noocyada kale ee cuntada degdega ah. KFC waa lagu guuleystay sababtoo ah waxay abuurtay astaan dhab ah oo leh magac xusuus leh iyo cuntooyin gaar ah si ay macaamiishu mar walba u fili karaan ama u helan karaan cunto tayo sare leh markii ay booqdaan mid ka mid ah maqaayadahooda. maxaa ka dhigay shirkad guuleysata? haddaba sanadahan oo dhan kadib, KFC weli waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee adduunka. waa mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee adduunka. maxaa ka dhigay Colin Sanders inuu guuleysto? Colin Sanders waxaa dhahnay waa aasaasaha maqaayadda KFC. haddaba Colin Sanders maxaa ka dhigay inuu guuleysto? wuxuu dejiyay nidaam lagu tijaabiyo cunooyinka kadibna wanaajiyay ilaa ay ka noqdaan kuwa kaamil ah. wuxuu diiradda saaray maadooyinka tayada leh. wuxuu had iyo jeer u furan yahay fikrado cusub iyo hal-abuurnimo si uu ula socdo isbedelada. howlgalkiisu wuxuu ahaa mid cad. haddaba su-aasha waxay tahay, maadaama aan fahmnay qisada guusha ee shirkadda KFC, sidee anaga u guuleysan karnaa? KFC waxay ahayd halbowlaha cuntada degdega ee maqaayadaha ugu caansan Mareykanka ilaa iyo sanadkii 1930. waxayna si guul leh u noqotay mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee laga yaqaan adduunweynaha idil. shirkadu waxay ku sii adkeysatay inay ku guuleysatay
iyadoo ilaalinaysa sida saxda ah ee cuntada asalka ah oo iska caawinaya cadaadis kasta oo lagu bedelayo. Cuntada asalka ah kaliya ma jecla macaamiisha, laakiin waa waxa KFC ka dhigay mid caan ah meesha ugu horeysa. Gabagabo, waxaa la soo bandhigay marar badan in habka guushu aan isku mid ahayn qof kasta. Shirkad ama calaamad kasta ay isku mid u ahayn guusha. Dib ma laha da'daada ama heerkaaga waayo aragnimo. Casharo badan oo kala duwan ayaa laga baran karaa sheekada guusha ee KFC. Mid ka mid ah casharada ugu qiimaha badan ayaa ah in aysan macno lahayn haddii aad tahay qofka ugu caqli badan, ugu qanisan, ugu muuqaal wanaagsan ama ugu kartida badan. Haddii aad haysatid fikrad wanaagsan, ka qaad tallaabo oo aad diyaar u tahay inaad si adag u shaqeyso si aad u aragto, waxaad gaari kartaa riyadaada. Ma ahan inaad noqoto kan ugu fiican, waxay ku saabsan tahay inaad noqoto kan ugu wanaagsan oo meel kasta ku guuleysan kara. Halkan waxaa inoogu soo gabagaboobay qisadii maqaayadda caanka ah ee KFC. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga.